galabta oo habeen jumca soo galay ah, caawa oo habeen jumca soo galay ah, taariikhda milaadiguna ay tahay 23 bisha afraad 2020 waxaa sugnaatay aragtida bisha Ramadaan oo caalamkana meelo badan laga arkay, dowlado badan iclaamiyeen sida Sacuudiga, Kuwait, Imaaraadka, Yemen, Bahrain, Masar, dowlado fara badan ay iclaamiyeen. dalkan haddaan joogno Kenyana sidoo kale iyaduna aragtideedu way sugnaatay, waa laga arkay. waa midda koobaad ee horta maanta waxaan helay macluumo saxsan oo sheegaysa bishii Shacbaan dhalashadeedii in magaalada Liboya Kenya in laga arkay habeenkii Arbacadu soo galaysay. macluumadaasi maanta ina soo gaadhay, waxaana xaqiijiyey sheekha imaamka ah ee magaalada, Sheekh Cusmaan Xade, oo 2 ruux oo dadka masaajid ku tukado jamaacada ka mid ah oo dad uu ku kalsoon yahay ka xaqiijiyey inay habeenkii Arbacadu soo galaysay ay bishii Shacbaan ku arkeen ama ka arkeen magaalada Liboyo. taa markii la qabto maanta 30 buuxay ahayd macluumada cusub markaynu qabanno. waxaa labeeya magaalada Xagardheer oo raacsan Dadaab, ayadana nin la yiraahdo Axmed Daawud ayaa isaguna aan la xiriirnay oo xaqiijiyey in uu bishii arkay isagu shakhsiyan. waxaa intaa dheer magaalada Wajeer tuulo ka mid ah oo iyadana la yiraahdo Duqsi ama Duqso, muxuu ahay oo basaad dhasheeg raacsan, ayaa iyadana waxaa arkay imaamkii masaajidka tuuladaas iyo dad aad u fara badan oo dadkii meesha ku tukaday oo ilaa 20 gaadhaya. imaamkii baan la hadalay, sidoo kale culimo kale oo meesha joogtay oo khuruuj ku joogto tabliiq iyagana way noo soo sheegeen. meeshana bishii waa laga arko, dad aad u fara badan baa arkay dadkii tuulada ku tukaday masaajidka ah. marka sidaas ama 30 buuxa ha noqoto maanta ama aragti toosaba ha la arko galabta, sidaasay bishii uga sugan tahay aragtideedu dalka Kenya gudihiisa. caalamiyana waa taa aan soo tilmaanay. sidaas daraaddeed inagoo arrimaha wax ku dhisayna, berri insha allahu tacaala oo jumco ah waa maalintii ugu horeysay bisha Ramadaan. waana soomaynaa insha allahu tacaala. caawa jumca bay inoo bilaabatay, berri oo jumcana insha allahu tacaala soonka inooga bilaaban doona. waxaan leeyahay, waxaan u tahniyadeynayaa dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan. ilaahayga tabaaraka watacaala bishii barakaysnayd nabad inagu soo gaadhsiiyey. ducadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaan ku ducaysanaynaa. ilaahay tabaaraka watacaala nabadgeliyo iyo ammaan iyo iimaan allah inoogu dhaliyo, ilana tabaaraka watacaala khayrkeeda hayna waafajiyo. ducadii nabigeena macnaheedu sidaa ahaa. waxaan leeyahay marka hambaliyo, ilaahay tabaaraka watacaala tawfiiqda hayna waafajiyo. bisha barakaysan khayraadka dhex yaalana ilaahay tabaaraka watacaala wax weyn allah inaga siiyo, hana inaga aqbalo. sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.